ninkii la guulaysta marka meeshan tartan ma jiro dada iska haysto weligeed alla iska haysta kii aqoon-yahan oo hataa madax soo taago qiila loo sameynaya wada xagga laga goyna inta wax ku goos aniga Soomaaliya naga daaya assalaamu calaykum waa ustaadkii janankii sijinayshuma official saaka subaxyaan kuma darsana adduun galan buu waacay horta waxaan idin ku codsanayaa waxa ay yeeli jirteen hadhow hadalka idafa soo ma noqon doona maanta warkayga waa weyn yahay waxa yeelaysiin saara leegi sheerkii kii kale wixii kale saara wixii suugada ah oo dhan macaaniinay baasha saara oo anigana aan wax ku heli lahaa idinkana ducaa idin ahaaleedo yani waa sadaqa waxaane yaa waa ka sad ilaahay khayr allah idin siiyo waxaa la yiri adduun galan buu waaceen maalin walba waagi baryoba warow leeyahay sanadkii yimaadaba warow leeyahay bishii dhalataba waray leedahay laakiin hala ogaado markii sanad dhasho taariikha bilaabanayso bil markay dhalato taariikh kala bilaabanayso yoon markay dhalato ama maalin yaa taariikha bilaabanayso walba wuxuu sameysana way u taallaa ama ummad ha ahaato ama dad ha ahaadaano ama haddii ilaahay ku diidan qof ha ahaado ama dowlad ha ahaato ama haddii ilaahay ku diidan wax raba ha ahaadaano taariikhdaasaa soconaysa qof adooya taariikhdii maalintaas oo sameeyo oo loo qoro way daba socon doontaa haddoo dhinta xitaa haddii wanaag oo sameeyo xumaan oo sameeyba taariikhdu way u taallaa waa la sheegi doonaa waa la isu sii sheegi doonaa marka maanta waxaan ka hadlayaa Soomaaliya meesha marayso alxamdulillah rabbil caalamiin horta aan ka bilaabo dawladaan leenahay hadda dawlad ayaan leenahay dawladana waa dawlad Soomaaliyeed dawlad qabiil maaha dawlad oo qolo maaha dawlad waa dawlad Soomaaliyeed dawladii aan soo dhaafnay dawlad Soomaaliyeed tan waa dawlad Soomaaliyeed tukala sugi doona oo yani hadii ilaahay na geersiyo iyo intii kulay Soomaaliya joogi doonta hadda anaga baxne waa dawlad laakiin maxaa loo baahan yahay dadka inay dawlad noqdaan dadka inay ayagoo Soomaali oo islaamnimadii horta dawladnimada yaa ka weyn islaamnimada ka weyn islaamnimada ayaa ka weyn islaamnimada yaa ka weyn ma jirto islaam qofka hadduu yahay waa inuu nabadgelyo oo ahaada alxamdulillah dawladaan leenahay maanta madaxweyne geesi aan leenahay mudane xasan sheekh أنا مدحوينيد وحواي لسه شقي ما قرت هذا الوطني ذي يا سيدي أذكر المضى ومركي وجودها تجي وحنا نوصل دالي باي دالي بمتقان سوونك سنة وبحي أيوه وبحي أدويد وصامري قرمدو بدو كقطبي أمريكا كقطبي يعني مالو بولت تجي هي ها هني قالوا لا هني ها أدي هذا الوفرح حتى ورياشي ورستي الجزيرة أنا قد هرت إلى وحنا قدر صومالة دالنا ملحولك استولاني وجيسي نيكو ربع جيسي وكانوا وجيسي جيسي نوض حي قطعي عد كرنيمة مركي أو هرتجان إن أما قرمدو ذا نقطة أما أفريقيا كانوا حلقة إنه يعني أنا لكن إن عدنتي أنا oo yani geesnimadii Soomaaliyeed yaa la soo bixin runta wixii adiga aayaha dambe iyo dadka yani wadan ah waa inaad ka hadashaa waa inaad yani si dhiiran hadii wax laga weydiiyo sida quman oo alla kugu ogyahay yani warkaadana aan mid oo yani arab galaal oo waa inaad ku hadashaa ما شاء الله مدحوينين واسكا عليا حتى ورياش جسير وريسناي warkii oo yiraahdeen waxay dhahayeen inuu ku adkeeyo meelaha qaarkood oo xumaan ka raadiyaan iska celiyo abaarti timber wuxuu ku dhufto Soomaalinimo oo adag oo aniga umadaas madaxweyne ka ah waa guuleysay marka insha Allah taas marka ka soo leexdo umada Soomaaliyeed marka waxa laga rabaa waxyaabo badan hadda dhacayo oo xumaan oo dhacayo dadka aad moodid inaanay ka hadlaynin
إن أنا كهذا وحيرة معنا لا أنا كالوالد هذا لكن مركي وحيابها ووجه أو جرتابت كعه أو مد الحديد كنعايو وهدي لا كود فرات حملة أو نبكي كنيسة رقم هالله المدي كتاب حالين يسوق بقول كتاب قالين يسوق كذا يسوق علماء وحاله الرواء طلع هذا الرواء علماء تتكلم كهذا وحيابان على كهذا إن ذلك لو دير قافو يا لو دير قافو أو قف بالعاد وحبات دم بالهين دم باللوير كهذا كي دم بقلها أولينا ما كان واكي دم بقلها كان ويدعي جرت مركي وحالة الصومال مركي دبك عنك أحيانا كالسعودي والشدة بنا أن سكوا قبلي ويدعي جرت إن ذلك ساس لو ظلمه كاس ولو ظل قادة كانوا ذلك أنا فينا هاي فينا سعودي لكن هذه الدولة أجرته دولة أجرته ذلك لفتوا هذا وين الدولة نمذي قدريانه وحي جرو ويرا وريا وحاول معها لكن فلان حمد بركي سو بلابني سو سلوكه ما أنت اللي يري أفر يربع dadku afar iyo rubac maalintii la yiri oo rubac bini aadan dhan rubac lagu sheegay maanta safidnada bilaabatay ka bacdi xalay aheedo xalay laga wadi ama marsiyoodi ma laga baxay waa si weynaan cunuga dhalna hadda maxaa loo sheegay waxa la kaas waa rubac adigana waxa tahay boqol ciidan waa rubac yaal adinku waxa tahay boqol sawaay ورمضة كلمة وحي إلهي ما بيننا يساعدك يا قف بنادم قف بنادم كفي عواكين وعباد إلهي وقفي عنه سيدك على النول بس قال بنادم كل شهاية كل شيء لفوا كل شيء لفتوا كل شيء وايقنا وحي توايقنا نبى لفوا كل شيء نول بماله كيف لكن الصومالي أنا الصومالي ينسكوا احترام يا إيه هدي تاس للسوسمي خلاص سوسمي ما قدوا لذول المرواية 1 2 3 4 5 6 ما مريسا ما كان مدحوينا المرواه ماشي لا جوجنا حلقه افر يربح ما حلها وهي برمان التقال ليه wax ka hadlay mal waxa laga hadlaa meeqan xansixina meeqan cunna meeqan xidna meeqan wardadku ana dada dambi lagu wada waxaas dhig yaa u dhigaya okay ogaada قونكي فدنا السماء أو فدنا الدائنتو أو ظلمك دائنتو إلهي غفور رحيم وشديد وحول بنوا أوجاي إلهي وحول بأوجاي أيا وحن لما نسين دبعتها دولة في مرة الله هلي دون الدولة وجود دقيقة مرة هلي دون أنت ظلم الله وضع قف اسكي فيلا لكن الشدة أو ببنت قرقلوع اسكا أو قرصيرك لبسوق بتتك maalintii oo Djibouti la tagay dadka soo qorsagaarkii lama halwayna malka dayna yimiya qorsagaarkii maxay dhashay marka nin dabileen in dhablo soo lira kii waxdi waakan dila laakiin dadka dad iimaan la waay dadka Soomaaliyeed ma xuma dadka Soomaaliyeed way fiican xabadka waxa leeyna waa arkayna waana dhici jirtay in wax la soo haleeyo ya waxa la soo haleeyo waa dhici jirtay dadka ma malaa'ik ma dadku waa binaadam wuxuu hadleynaya laakiin wax markii hadleen in loo fiirsado ilaahay wuxuu qadaray dadku way kala fiican yihiin dadka yaani la rabo in loo shaqeeyo xashakada aniga ay keen ninkaan shaqo kuma leeyahay ya ninkaan aniga shaqada ma ninkaan aniga wax ku in ka soo dadka qaar carabkooda wax ka dhacayo waxaas ma aniga waxay igu gudi kartaa waxaas ma aniga waxay igu gudmayeen haday noqoto taa kula ما سجال بلاد كنا ولا قبيلة وياي كان مسكين كان لفوا كل شيء إلى كده لي أذكر لفوا كده سوماليا تايلاند سومالي واسنا الدين مو حاسة واحد وجود ما بكون وجود ما الدنبي باش إذا كنا لا الدنبي لا شيء ستاري حشينا يا أخي ما كمان تذكر هالكود هاي قالوا دونان أستاذ ما توا كل ما كل لا وحرمت الشيء يا كل معها والرشيق حق إلا الشيء وين واي يا محاول لا ما كان السلام عليكم محاول دك سان سمعنا علماء كذلتي علماء دي واحد لا ذنب واي وحن ما أركين نين أقوياء وين وهلا لا وحن كجوج ما أركين يا
abaar marka sayrta marka in adiga oo lagu sii socdo nin walbana 2 mitir sugaysa aakhiro qabrigi sugaysa wallahi billahi tallahi inaad noolaa doonin wallahi in la noolaa doonin nin walba meeshii aniga tirada hadda aan tirsaneyn odayaasheen dalxiis bay aadeen dadka aniga aan ka dhalanay سعيد أبي ونور وحيك في حقاي دالحيس ما آذن دالحيس كما مغلا إلى أرصدي وأنا هرطات ندد على أرصجري يا نبياش على أرصدي ما قرأتي ولمدي معاني ذا الله أرصدي دتكي بنادمكي أنت عقيار وحقري جرتو أدو وقت عسوا أزدم الصعد ماشا جوجس مطالو joogis ma taal waa la soconayaa walaalayaalo Soomaaliyeed waxa idin sheegaya cuduradan oo dib loo abuurayo yaa iska daayo qofka qaarkiis waa iska dal qafa waxa uu rabo iska sheega marka dulmeynti la wado waxa dulmi inta wada adiga waxa leeyahay xaasidka intuu xasdaayo inuu xasdaayo moodaya laakiin asaas xasdaayo xasid وحسدوا إسليه أساس حسداي كم واحد سحروقي بلايد تفافك كسميناي أسجل أسبوعينها وحما أوجع واحد أذيك الشيء وحي إلهي الشيء كون يا واحد أذيك ود تي نبي عليه الصلاة والسلام دين تأكسو كان تعالى كان يا حسبنا الله ونعم الوكيل دكورة واحد شيء يسولن عليك تعالى يا والله يالو ورجعك الصومالي ثال دور والله بالله تعالى نقول بهرت نقول بقلك قرطو أيال مال وطار نقول بقد فرطت قرطاك وطار وهذا ضرات دولة دين الهين مركي دميسي دلا دول مش شيء إذا صعدوا باش سازله أو سي فردي سازله نبكي سهجر عدورهم وبلا آدم نرى مال وذجوا نبغى نعه لكن وحلا قاتي باش أنا عند الدومينو ما ساز داي محل الربي مسألة الربي إن الدك يعني أو الدول ميال الربي دول يتعرس شلي أول الدول ما لقوم الدول إننا ملاينا يا لقوم الدول إننا ملاي هذا الدول من الربي حتى الدول بقى تسوين إنه يساعد وياه إله كون نور بو حليو إله كون إن شاء الله والصومالي ماذا هلا إلاليو ولا ماذا هلا إلاليو إسلام ماذا هلا إلاليو إله إسلام بجد إله يعني نحرمه ونجد جد يعني مقام سرجوجه ولا إله إلا الله وكلمة التوحيد أنت عايز محمد رسول الله ولا إله إلا أنت لا وأشهد خيرين يا الحمد لله رب العالمين ده الإسلام عليه والسلام ماذا دب الله فيه والشدة يدباتها ومدر أو يسكون لحظة دالس كدايو ورنكي أو يعني عرفت إنه كان دلموي يعني دت كذا اللي ينكو قبو قف كلا سي دلمين قف كلا أديك يعني دلم أنت جالس تعدل دلم كلا سي قال دت كلا دلم على سي جالسين محاجرة وردت الصومالي ما هم يعني ورنت أنت هذا كوني سيال لبض كوني أو حال مروايو لبي لو أطلع المرواية الصومال ما يخيسوا جرت مركا ما يخيسوا جرت أنت الدولة دور بحدي لحلان وحي كأه عدي لا طورة أنت لو سهاري سباقي أو صومالي سو جرتي أنت سكر الصنو يا ولا قاعد جري قف دلي واحد جرا واي قابيل هابيل واسدلين ولا لاي دلك واسعنا يا دلك واسعجري لكن دول مجوايراي dadku waxay lahaayeen odayaal xeerbeegta ah taliso qolo walba qabiil kale wuxuu la lahay xeer qofka gacan laga jibiyo xeer la isugu tagay lahayd haddii qofka oo madaxa la jibiyo xeer ay lahayd haddii qofka la dila xeer ay lahayd iska duufida oo dadka iska duufa dadka iska dilaa waa sanadahan oo dawladda Boortaqiis ka saan ahay oo dadkii dulmiga sheeganayay shalay haddana ay ayaga midiya soo qaateen okay insha Allah ilaahay waxa ka bareeraa ummadda Soomaaliyeed waa ummad Soomaaliyeed soo dhalto walaal ah
dhalashada ma aha calool hooyo ka wada yimideen ma aha adduunka dhanaa afrikada arkaysid aniga wadankaan joogno 47 qabiil miyaa halkaasay maraysaa wax isku xadgudbaya wax kalena ma jiraan dowladda way dhisanto waa kaasoo nin walba intuu kule mana lis dulmi ma jiro laakiin tartan waa jiraa waa la tartamayaa ninkii la guulaysta marka meeshan tartan maba jiro dadaa iska haysto weligeed alla iska haysto kii aqoon-yahan hataa madaxa soo taago qiilaa loo sameynaya wada ogaada un qoonkii dulmi ku wax dulmi ka dhigta shaqo ka dhigto oo dad binaadan oo walaal oo islaam oo Soomaali ah oo haddii Ilaahay ku didin aad ogtahay sal iyo baar aad ogtahay inuu Soomaaliya inaad maanta xoogo dulunto inaad dulunto haddaad wax ismooday dulunto waa laga fiican yahay wardib iskugu noqdo dadka xumaantooda waa ogtiin dadka ma wada xun dadaa xun dadka xunne xumaantu anagu waa ku ognahay aan ku ogaanay midda hadda aad la soo baxdeen leedikuma ogeen hormar intuu socotay haddii qof islaameedo leedin kala kan maaha kii kale oo ima qalmaani waxayna wax ugu dir maxaa ilaahay idinkiisa waxaan ilaahay ka rajaynaynaa ummadaas Soomaaliyeed inay dowlad noqoto dowladda ma aha dowladnimada dadka laga rabaa waxay wax dulmaayo walaalka inaad ka qabato tiraado dulunka daa dib ugu soo noqonay dulun ninkii sameeyay dib ugu soo noqon doonaa dulunka daa naga ka joog waaba lagu sheegay walaalka hadduu dulman yahay qabaal lagu yiri haddii laga dulman yahay ka qabaal lagu yiri dadka labadaba ku furan tahay si islaamnimo uga qabaal lagu yiri si dulmi maaha marka haddii asaas la yeelo wanaagga aan lisfarino dowladnimada ma jirayso macnaha dowladnimada waxay ku jiri kartaa dadka markii ay inay ummad wada dhalto qaala yihiin meel wada jeeda markii noqdaan ayay dowladnimadan sax noqon kartaa laakiin dowladnimada ma aha dowladnimada aniga waxaan cunayaa haleelada caanaha dhaydaan cabaa adiga garoorka cab ciirta cab adiga anigana waxaan cabaa karuurka waxa soo galay aan cunaa adiga waxaad cuntaa saas ma dowladnimo ku ahayn maya jaranjaro markii la fuulayo 15 markay tahay tan labaad joog 15 kan fuulsanaana aniga tayo wasaas ma hal ku qaybsan karnaa maya sax ma qaybno nin oo jaranjaro meesha saar markii geedka soo gurnay oo miraas soo gurnay jaranjarta midda koo labaad nin saaray nin 15 kara inuu saarnaado rabo miya isla guri karan waxaad ka dhacay leerta ila qaatimiya waxaad ka dhacay markii wax gurays ka dhacay ilaahu wada wax walba u jeed ilaahu ummadaan wanaag ku soor oo ku had ilaahu ummadaan wanaag ku had iimaan allo geli ilaahu fidnada iyo balaayada ilaahu anagu waxaan doonaynay dalkeena u baahanay dhulkeena u baahanay aad iyo aad ugu baahanay runtii maxaan baahnaada maxaan noqonayaa marka aniga marka qalbigeyga xumaantayda adiga wax ma ku dhimayso miya qalbiga aan xumaanay marka adiga wax yeelays ani qalbigeyga xumaanta aan gelinayo ilaahay dulmano la jiraa insha Allah Soomaali wanaageeda waxaan rabnaa ilaahay idinku soo ilaahay ka baryana ummadii way warartay waa aragteen gabdhihii yarkaay maartii way socolaayeen meel maraan ilaahay wiilshii waa arkaysiin wixii hadda la dhalay waxyaabaha bariyaha la dhalay waa arkaysiin waa shaabalaat midiye wata waxaad ka arki kartaa markii oo xaq meesha ka jira waxaad ka arki kartaa hoos markaad u fiirisay xaafadana qaylinayso dhayso aan noolaanaayay
ونولا أنا نفتح نولا إلمي بيو أو درسلان عجين إلمي سكر أو درسلان قبل نقطة ويل نقطة محل بسمينا ويل يقبل وحيلاكم خمولود نمر بسمينا ولا ندلع داي maxaa keenaya dulmigan weyn oo kor jiro kor oo idinka aad raali ka noqoteen kan keeno hay xagga markay adiga wax ula rabto xumaanta ku cid adiga hoostaada ka dhalanay ogow wax kana ilmii dhalay waxay dhalay shaadalaata wada watan ha juq waa dili maxaa ku dishay wallahi ma ogi markii dilay waan ku dili ma ogi haye ka waran markii kale wariya maxaa dishay warinka maxaa dishay walaal markii dilay ma ogeen midida ma ku dhiftaa waaba kanba waa kan xaqiyo iska cad ma arkilaadin xaqa inuu iska cad yahay waa arkaysiin ma dulmiga dhaaf marka ya warma dadka masaakiinta dhowr miskiinku waa dhowr jiray miskiin siisaba waa dhowr jiray haddii la arko markii yaraa jirnay magaalada xamar markaan aragno qof oo sisi ah ama yacni qof oo soo cabay baasha aan aragno markaan rabno inaan rabshayno dadka weyna xagga waryaa maskiinka iska daaya war maskiinka daaya tan maaha qof bini aadan ah oo adig kula mid ah laakiin adiga midiyaha aad wata aan wadan nodgaruunka aad wata aan wadan madfaca aad wata aan wadan tordi xabadda aad wata wadan kaas miskiin waaye dariskaada ilaa la-de waa ilaa la-de marka maxaa kuu samaanaa haddaa maskiinka disho haddii maskiinka wax yeesho maxaa kuu samaanaa war haddii maskiinka hor sagaar lagu qabto maxaa samaanaya ya maasha allah ilaahu na badbaadi intii islaama ilaahu ummadda badbaadi ilaahay u badbaadi ilaahu nabadgelya ka dhig ilaahu dhiiggaa meesha ka qulqulaaya ya badbaadi si loo joogo waxaa arkaysaa meel heblaayo waa isku dilaa waxaa isku dilaa dhul meeqaa laga dil 20 ay dhimatay haye maxaa la yidhi waa laga hadlaa maxaa isku dilaa dhulka hataa yaa iska ilaa horta dhulka iska leh ka sukow dhul islaameed oo wal dadka lahaa jiray aan isku dilo iska wixii dulmiga keenay waxaa waaye meesha walaal xalaal meesha xalaal ma jiro markii dhul isku dilaa aragtay xalaal meesha ma taale waxaa waaye dhibaato dulmiga jira xagga laga goyna inta wax ku goosid anaga Soomaaliya naga daaya maxaa dhacay Soomaali manin anaga war dad Soomaali soo dhashay Soomaaliyin war ina calool hooyo laga wada iimaan waa la ogyahay nin walba abtiro lahay laakiin Soomaaliya taa Soomaaliya suu ma jirnay markii waxaan la idima adiga ina xanuunsatay ahayd aniga marka adiga say aniga ku xanuunsan adiga iyo xanuunsanayna aniga say ku xanuunsan laakiin bini aadamnimada ay xanuujinayso oo xogo karaamada macnaha naxariista waa loo kala beeran yahay naxariista lafteeda ilaahay qoonka markuu abuuray dadka qaarna reer naxariista laga dhigay dadna reer balbal laga dhigay macallin basbaas dhijiray macallimiinta oo ilmaha si fiican u shabiicisa macallin basbaas marka dad sidoodaba reer kuleel ay reer basbaas ay kuleel qiimaha ay reer kuleel dadna reer naxariista ay reer bambeel ma ay reer bataate ay reer waxay ay bambeel reer yaanye ay reer basalay ay reer wax qabowga reer waa ka siiwad ya waa ka saasal ay walba ognay iyadoo sida la ahay arabal dhowr kala oo walaalnimada isku dhowr jirtaan insha Allah warka waa ku dheeraad waxa ugu dheeraanay waxba idin tusay inta aniga kulli aan garansiisanahay ama aan arkay ama maqlay idinka maqlaysaan ama arkaysaan oo arkayno ayaan ka hadlay cudur kale ma jira waxa ugu jiro Soomaali inay waxa dhaqanka hadda ay wado oo xun inay ka noqoto dawlad inay noqoto shacabka inuu dawlad noqdo oo dadka walaalka la dhowro oo ninkii wax ka gaar caduftaada gaarta gacanta laga dabageeyo is ixtiraamo oo saas islaamnimadu isku ixtiraamo Soomaalidu isku ixtiraamo walaalnimadu isku ixtiraamo wada deegaanka isku ixtiraamo dhaqankii la ilaaliyo xalaashahay insha Allah salaam alaykum